kusoo dhawaada saaxiibayaal barnaamijkeeni ciyaaro halkaad kala socotaan waa Cawaalo Official Channel. qodobada ugu muhiimsan wararkeenana waxaa ka mid ah Nerasuri oo radis imtixaan adag kaga qaadaysa San Siro. Bavaria Austria marti ugu ah kooxda Salzburg iyo xogta kulanka. Kylian Mbappe oo ka hadlay haddii go'aanka mustaqbalkiisa ka gaadhay kadib kulankii xalay oo kala jiray Real Madrid. muxuu yahay rikoorka taariikhda madowga ee Champions League Lionel Messi jebiyey kadib kulankii Real Madrid. Ralf Rangnick oo ammaan ugu qubeeyey Cristiano Ronaldo kadib qoob ciyaareedkiisii fiicnaa kulankii Brighton. fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe sar haddii horena loo jecel share ku darsiina faafi barnaamijkan. Nerasuri oo radis imtixaan adag kaga qaadaysa San Siro. kulanka dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Inter Milan ayaanu ku bilaabi doonaa barnaamijkeena. kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa caawa marti ku agagida San Siro waxayna kulan ka tirsan wareegga 16aad ee Champions League halkaas ku booqanayaan kooxda Inter Milan. Radis ayaa ahaa mid ka mid ah kooxaha aadka kooban ee rikoorka 100% kaga soo baxay heerka guruubyada, halka Inter Milan ee booska labaad ee kaga soo baxday gruubka ay wadaagayaan Real Madrid. labada kooxood ayaa ku kulmay Champions League 4 jeer oo hore, kulankana u noqon doonaa kii shanaad. Liverpool ayaa 3 ka mid ah 4 kulan ka adkaatay, halka Inter Milan 1 kulan oo keliya ay adkaatay. kulamadan ayaa ka mid ah wareegga bugbaxa sanadkii 2016 waxa ay ku kulmeen wareegga 16 markaasoo Liverpool ka ciribtirtay Champions League kooxda Inter Milan, halka Liverpool sanadkii 1965 ay ku kulmeen kooxda Inter Milan semifinalka, markaasna kooxda Liverpool laga ciribtiray tartankan Champions League. Inter Milan ayaa ay ka maqnaan doonaan daafaca bidix Robin Gosens iyo weeraryahanka Korea oo labaduba ka soo kabsashada dhaawacyada ay ku qaateen, halka Nico Barella uu ganax kaga maqnaan doona kadib casaan u qaatay kulankii ugu dambeeyay heerka guruubyada ee kulankii Real Madrid ee wada ciyaareen. dhinaca Liverpool, John Klopp ayaa macquul tahay inuu isbedelo kooban ku sameeyo shaxdii axadii kaga adkaaday kooxda Burnley. Thiago Jota oo kaydka kusoo bilowday kulankii Burnley ayaa la filayaa inuu safka koowaad ee kooxda ka mid noqdo, booskana kala baxo weeraryahanka reer Brazil ee Firmino. labaad ee Champions la ciyaaraya caawa waxaa ka mid ah Bavaria oo la kulmi doonta kooxda reer Austria ee Salzburg. qodobka isaga ayaa aynu milicsan doonaa. kooxda reer Germany ee Bayern Munich ayaa u safraysa dalka Austria si halkaas kulanka lugta hore ee wareegga 16 UEFA Champions League kula soo ciyaarto dhigeeda ee Salzburg ayaa kooxdii ugu horeysay Austria ee ka soo baxda wareegga guruubyada, balse xilli ciyaareed hore ayaa ay Bavaria guruubyada ay ku soo kulmeen. labadii kulanna waxaa ka adkaatay Bavaria. Salzburg waxaa ka maqnaan doona weeraryahankooda Benjamin Sesko oo dhaawac muruqa qaba, waxaanu ku biirayaa liiska xidigaha dhowrka ee ka maqnaa markii horeba kooxda RB Salzburg. Bayern Munich ayaa mar kale waxaa ka maqnaan doona goolhayahooda Manuel Neuer. inta kaga nimaadna kulamada caawa la ciyaaraya Champions League, markana eegno wararka kale ee kubadda cagta. weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe oo go'aan ka gaadhay mustaqbalkiisa kadib kulankii xalay uu kala jiray Real Madrid ayaa aynu eegi doonaa markana.
weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ayaa ka hadlay haddii isagoo go-aan ka gaadhay mustaqbalkiisa kadib markii uu xalay kooxdiisa ku hogaamiyey guushii muhiimka ahayd ay ka gaadheen Real Madrid. Mbappe ayaa si miisaan leh loola xidhiidhinaya Real Madrid marka heshiiskiisa Paris Saint-Germain dhammaadka xilli ciyaareedkan u dhaco. xalay ayaa ahayd markii daqiiqadii 94aad goolka guusha ka dhaliyay islamarkaana isaga faa'iidada lugta hore siiyey Paris Saint-Germain. Mbappe kulanka kadib la hadlay ilwareedka reer Spain Movistar ayaa sheegay inuusan weli wax go-aan ah ka gaadhin mustaqbalkiisa islamarkaana uusan kulanka xalay wax saameyn ku yeelan doonin. anigu ma go-aamin mustaqbalkayga, waxaana u ciyaaraa PSG, mid ka mid a kooxaha ugu wanaagsan dunida, ayuu Mbappe hadalkiisa ku soo koobay. muxuu yahay rikoodhka taariikhda madow ee Champions League ee Lionel Messi jebiyey kulankii xalay ee Real Madrid? qodobka isaga ayaa aynu milicsan doonaa. weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Lionel Messi ayaa kulankii xalay guushay xilliga dambe ahayd gaadheen Real Madrid jebiyey mid ka mid a rikoodhka liita ee UEFA Champions League. rikoodhkan uu jebiyey Messi ayaa inuu gaadhay tirada Thierry Henry ee rikoodhayaasha ugu badan ee la khasaariyey taariikhda Champions League. xilli isku dayada rikoodhayaasha tartankaas u dhaafay Cristiano Ronaldo, Leo ayaa lumiyey 5 ka mid a 23 rikoodh oo uu tuuray intii uu Champions League ka soo muuqanayay. rikoodhka taariikhda madow ayaa xalay loo diiwaangeliyay Lionel Messi kadib markii rikoodho loo dhigay kooxda Paris Saint-Germain oo loogu xumaamaday Lionel Messi inuu laado isla markaana gool haya Real Madrid. ninka joog dheer ahayd Thibaut Courtois ayaa si fiican uga badbaadiyey. markaan eegno qodobka ugu dambeeya weerarkeenan oo ah Ralf Rangnick oo ammaan ugu qabeeyey Cristiano Ronaldo kadib qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee kulankii Brighton xalay Premier League la ciyaareen. tababaraha ku meel gaadhka ee Man United Ralf Rangnick ayaa ammaan ugu qabeeyey weeraryahanka Cristiano Ronaldo ee kulankii Brighton, isagoo ku tilmaamay mid ka mid a qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa tan iyo markii uu tababaraha noqday Man United. Man United ayaa gashay kaalinta afraad kadib markii 2-0 uga badiyeen kooxda Brighton. golol ay kala dhaliyeen xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Bruno Fernandes. xidiga Cristiano Ronaldo ayaa soo afjaray 6 kulan oo goolo la'aan ah, isagoo goolka furitaanka u dhaliyay kooxda shayaadiinta casas kulankii xalay ee Brighton. Ralf Rangnick oo ka hadlay Cristiano yidhi aad ayuu muhiim u ahaa, keliya ma ahayn gool la dhaliyey, laakiin wuxuu gool cajaa'ib ah, ayuu yidhi Ralf Rangnick. sidoo kalena wuxuu muhiim u ahaa kooxda, laakiin qaab ciyaareedkiisii ugu fiicnaa intaan halkan imid ayuu xalay soo bandhigay, ayuu Ralf Rangnick yidhi. sidoo kale Cristiano ayaa rikoodhka gool-dhalinta Man United Premier League noqonaya 93 gool, halkaasna uu la berbereeyay weeraryahankoodii hore Regnal Andy Cole oo isaguna dhaliyay 93 gool Premier League. ayuu keegay barnaamijkeeni ciyaaruhu. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe sar, haddii aad nala joogtana like share ku darsiina faafi barnaamijkeenan si uu gaadho asxaabta jecel kubadda cagta.